السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إذا لهانتينا بوان إذن سلام ميل كستاد أدونك كجوكتان هدي aad nagu cusub tahay soo dhawow haddii aad hore noola joogto waad ku mahadsantahay la joogaaga mar kale iyo barnaamij kale Ramadaan ku saabsan insha Allah waxaan ka hadli doonaa saa hoosba uga aragtaan ciwaankeena fadliga uu leeyahay bisha Ramadaan insha Allah waxaan rajeynaa in aan waxaan ka fahansanahay idin soo gudbiyo cilmigeyna kuma soo koobi karno fadliga Ramadaanka uu leeyahay balse insha Allah waxaan soo qaadan doonaa qaar kamid ah mase qayb kamid ah fadliga uu leeyahay bisha Ramadaan insha Allah isla socod wanaagsan dhamaantiinaba aad u mahadsantihiin mar walba saad inoogu xiran tihiin waan idinkaga mahadcelineynaa insha Allah ilaahay ha inaga dhigo kuwa uu dambi dhaafay ku raali ahaashihiisa wuxuu raali ka yahay sameeyay insha Allah isla socod wanaagsan waxaan ku soo qaadan doonaa qaybka koowaad ugu horeeya ee bisha Ramadaan ay leedahay waxa kamid ah waa shahru Qur'aan waa bisha Qur'aanka Kariimka la soo dejiyay bishani waa bishii Qur'aanka Kariimka la soo dejiyay Qur'aanka kaliya ma ahan kutubada dhamaan samada ka soo degay bishan waxa ku soo degtay Qur'aanka dhamaan ilaa kutubada ee ka soo degtay samawada lagu soo dejiyay nabigeena Maxamed sallallahu alayhi wasallam iyo nabiyadii kale intaba waxaan ugu waajibaa in aan badino aqrinta Qur'aanka Kariimka bishani lama qofkii Qur'aanka akhriya lama soo koobi karo haddii aad hal mar dhameyn kartid hadaa laba mar dhameyn kartid hadaa saddex mar dhameyn kartid inta aad awoodid inta aad dhameyn kartid lama soo koobi karo fadliga ee leedahay bishani markii laga dhanka iyo Qur'aanka insha Allah waxaan rajeynayaa in aad noqotaan kuwa akhriya Qur'aanka wehelna la noqdo Qur'aanka saaxiibna la noqdo Qur'aanka insha Allah haduu Ilaahay idmo qof walba waxa looga baahan yahay in uu akhriyo Qur'aanka Kariimka in uu akhriyo akhrintiisana badiyo insha Allah fadliga labaad ay leedahay bisha waxa kamid ah waa bil uu Ilaahay adoomadiisa ugu dambi dhaafo sida culimada qaar ay sheegaan in ay tahay tawanka ugu horeeya Ilaahay adoomadiisa ayuu ugu naxariistaa ka xigta Ilaahay subhanahu wa ta'ala dambi dhaaf waaye Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu ugu dambi dhaafaa adoomadiisa qaar kamid ah inta amalka waxyaabaha uu faray qabata oo ugu dambi dhaafaa insha Allah Allah nagu daro kuwa ugu dambi dhaafo una naxariisto tamanka kale inta Allah subhanahu wa ta'ala adoomadiisa ayuu ka xarimaa naarta wuxuuna u balan qaadaa jannatul firdaws al-a'la Allah subhanahu wa ta'ala ha inaga yeelo kubi jannatul firdaws al-a'la lagu bishaareeya loona dambi dhaafa loona naxariista Allah ha inagu daro hanaga midigo waxa loo baahan yahay in aan ka faa'iideysano yaa ka nasiib badan qof soo gaaray bisha Ramadaan kana faa'iideystay yaa nasiib xun qof soo gaaray bisha Ramadaan kana faa'iideysan waayay nabigeena sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri qofkii sooma bisha Ramadaan Allahna kaga ajir xisaabsada Allah wuu dambi dhaafi doonaa adoonkiisa fadliga saddexaad ee leedahay bisha Ramadaan waxa kamid ah tahjiid wa taraawih bisha Ramadaan saa u ognahay waxaan tukanaa taraawih waxaan tukanaa tahajjud bilaha kale lama tukado taraawih iyo tahajjudba waxaa la tukadaa salaatul leyl oo qofkii doon uu tukado dadka badana ay tusan tukanin inta badani waxaan tukanaa salaatul leyl salaatul taraawih salaatul tahajjud marka kuwa laga aqbala Ilaahay hanaga dhigo kuwa qabta lagana aqbala Ilaahay hanaga dhigo subhanahu wa ta'ala Allah ayaan ka baryaynaa inuu naga yeelo ku adoomadiisa kuwa u naxariista u dambi dhaafa naartana ka xarima oo jannatul firdaws al-a'la ugu bishaareeya fadligiis afraad ee leedahay bisha Ramadaan waxa kamid ah Allah subhanahu wa ta'ala adoomadiisa ayuu naarta ka xarimaa waa fadliga afraad ee leedahay bisha Ramadaan إلهي هاينا جاي لكوب لجا حرمي
naarta. Nabigeena sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri ينادي منادي يا باقي الخير أقبل ويا باقي الشر أقصر ولله اعتقاد منا نار في كل ليلة رمضان. nabigeena sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay midka yeeraya ayaa yeeraya, midka khayrka dadka ugu yeerayo aqbil, midka sharta dadka ugu yeerayo meeshaada ku gaabso. Allah wuxuu leeyahay adoomo uuna naarta ka xoreynayo habeenka walba oo bisha Ramadaan kamid ah, qaybkan kamid ah ayuu naarta ka xoreeyaa. fadliga shanaad ee leedahay bisha Ramadaan, Allah wuxuu furaa albaabada jannada wuxuuna xiraa albaabada naarta. shayaadiintana waa la xiraa kuwooda waaweyn. Allah subhanahu wa ta'ala ha inaga yeelo kuwa albaabada jannada loo fura kana shaqeysta, kuwa albaabada naarta laga xira kana soo leexda. fadliga lixaad ay leedahay bisha Ramadaan soo ma koobi karnee. waxaa kamid ah inuu Ilaahay adoomadiisa u aqbalo ducadooda, oo waa taa suuratul Baqara lagu sheegay markii laga hadlayay bisha Ramadaan safxada ugu dambeysa. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إلى دعاه فليستجيبوا لي وليؤمنوا به لعلهم يرشدون. الله wuxuu leeyahay adoomadeyda haddii ay wax i weydiistaan oo ay i baryaan aniga waan u dhowhay. nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay adoonka cibaadooyinkiisa dhamaala isaga ayaa iska leh markii laga reebo bisha Ramadaan. Allah ha inaga yeelo kuwa shaqeysta bisha Ramadaan khayrkeedana xumaanteedana iska fogeeya. Allah ha inaga yeelo kuwii loo dambi dhaafay laguna daray kuwa loo naxariistay, laguna daray kuwa loo jannatul firdaws al-a'la kuwada kulma. Allah ha inaga yeelo. Allah subhanahu wa ta'ala waxaan ka baryaynaa inuu naga aqbalo cibaadooyinkeena aan sameynayno oo aanan ka yeelin kuwii shaqeystaana waxna ka faa'iidin cibaadooyinkeena ilaa naar inay u badiyaan mooyaane. Allah subhanahu wa ta'ala waxaan ka baryaynaa inuu naga yeelo kuwa akhriya Qur'aanka Kariimka kuna dhaqma. Allah subhanahu wa ta'ala waxaan ka baryaynaa inuu naga yeelo inta uu naxariistay inuu daro. waxaan intaas idinkaga tegaynaa sidaas iyo amaana Allah. ha inaga hilmaamin sharta, commentiga, subscribe-ka intaba waxay inoo yihiin dhiirigelin insha Allah. waxaad ka mid tahay soo dhawaad asxaabteena. waxaan rajaynaynaa inaan inta sanadkiisa Allah subhanahu wa ta'ala khayr inoogu gaarsiiyo. dad badan ayaa sanadkii hore nala soomeen, sanadkan nala soomeenin. dad badan ayaa taraawiixda nala tukanayay sanadkii hore, sanadkan nala tukanaynin. dad badan ayaa nala suxuuran jiray maanta oo kalena nala soomi jiray maantana aan nala soomnayn. Allah ha inaga dhigo kuwii isku baraara jannatul firdaws al-a'la shaqeysta, adduunkan farxad ku noolaada, aakhirana farxad ku noolaada. adduuniya aakhiraba kuwa farxa Allah ha inaga yeelo. waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo amaana Allah. ha inaga hilmaamina sharta, commentiga iyo subscribe-ka intaba waxay inoo yihiin dhiirigelin. Assalaamu calaykum.